madaxweynaha dhawaan oo xilku ka dhamaaday ahna musharax u taagan mar labaad in dib loo doorto ayaa caawa shaaciyay musharaxnimadiisa taasoo uu sheegay madaxweynuhu in mar labaad dib loo doorto. madaxweynaha ayaa dib u milixsaday waxyaabihii markaa uu soo qabtay. sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay maalinta 15 bisha May ee fooday nagu soo haysa inay tahay maalintii loo asteeyay guulihii ay gaadheen SYL. sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay isla maalinta in guulo wanaagsan dalka Soomaaliya uu gaari doono. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka codsaday xildhibaanada labada aqal inay maalinta mar labaad doortaan sidii waxyaabaha qabyaha ka markaa ee dalka ka dhiman uu hore ugu sii wado. madaxweyne Farmaajo ayaa la ogyahay muddooyinka ugu badnaa loolan siyaasadeed iyo sidoo kale hardan inuu kala dhaxeeyay musharaxiinta dhigiisa ee la tartamayso. lama garanayo sida tooska ay maalinta doorashadu ay noqonayso walow la filayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lafirkiisa inuu loolankiisa iyo diyaar garowgiisa uunsa ahayn mid la dhayirsan karo. haddana Soomaaliya ayaa caadi ahaan iska ah qof xil soo qabtay mar labaad inuusa xil labaad qabanin, balse madaxweynaha ayaa ku dadaalaya sidii mar labaad uu noqon lahaa xubinta ugu sarreysa ee dalka hogaamin doonta. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aad u amaanay waxyaabihii uu ka soo qabtay dalka muddadii uu xilka hayay ayaa sheegay isagu inuu mudan yahay mar labaad in loo doorto madaxweynaha dalka afartan sano ee soo socotana isagu inuu hogaamiyo. madaxweyne Farmaajo oo la garan og yahay intii uu xilka hayay in loolan siyaasadeed oo adag uu la galay kooxaha mucaaradka isaga ku ah ismaamul goboleedyada qayb ka mid ah ayaa mar labaad u taagan qabashada xilka madaxweynaha isaga oo taageerihii markii uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shaqada dalka qabtay iyo maanta taageeraha uu ku leeyahay xildhibaanada iyo sidoo kale ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda farqi weyn u dhaxeeyo. haddaba maalinta 15 bisha May ayaa loo asteeyay madaxweynaha Soomaaliya in la doorto, doorashadana si toos ah loogu dhaqaaqo. muddo kooban ayaa ka hadhay maalinta iyadoo xildhibaanada intooda ugu fara badan ay diyaar garow iyo ugu jiraan sidii qofkii iyagu ay markaa ku qanacsan yihiin ay rabaan u dooran lahaayeen. dhanka kale musharaxiinta ayaa iyagu qaadanaya shahaadada musharaxnimada taasoo ay ku cadeynayaan inay u taagan yihiin xilka qabashada madaxweynaha Soomaaliya 4 sano ee soo socota. maalinta bisha 15 May ay ku beegan tahay ayaa loo dhaqaaqi doonaa doorashada iyadoo lagu qaban doono teendhada Afisiyoni. horeyna loogu doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkii 4 sano hore loogu doortay ayaa mar labaad lagu dooranayaa qofka noqon doona madaxweynaha 4 sano ee soo socota. wax isbedel ah ma dhicin 4 sano ee madaxweynuhu hayay in doorashada meel kale loo bedelo maxaa yeelay waa halkii isaga uu lagu doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar labaad ayuu tartan ka galayaa teendhadii 4 sano ka hor aan idhaahday 5 sano ka hor lagu doortay. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u taagan mar labaad qabashada xilka isagoo caawa shaaciyay inuu yahay musharax u taagan qabashada madaxweynaha xilka Soomaaliya 4 sano ee soo socota.